أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيبها kala duwan ee tacliinta sida iskuulada iyo macaahidda sare iyo jaamacadaha inta badan waxay helaan tababar iyo seminaaro iyo kulamo ay isku dhaafsadaan aaraada iyo afkaarta si ay uga gudbaan ama ay u xaliyaan mushkilaadka hortaagan. inta badan madaarista quraanka kariimka ma helaan fursadda noocaas oo kale ah kulamo ay isugu imaadaan tababarka oo laga faa'iido dhowr shay oo ka mid yahay macaarif cusub ama wax cilmi cusub inuu ka korsado macalinka ama maamulaha quraanka iyo inuu ka korsado xirfado cusub ama maharaad cusub iyo inuu ka korsado itijaahaad ama qaabkii uu awal u dhaqmi jiray inay wax ka bedelmaan oo dugsigiisa uu wax ka bedelo ama sidii uu ardada oo la dhaqmi jiray ama waalidka sidii uu maareyn jiray. jamciyadda quraanka kariimka jamciyadda quraaniya fi Kenya waxa farxad weyn u ah inay u yeerto ku casuumto macallimiinta quraanka kariimka iyo maamulayaasha dugsiyada quraanka dowro silsilad noqon doonto qaybteedii koobaad. dowradaas ama xaqiibadaas maartay tababarka ah oo ciwaankeedu uu yahay muwaasafaat almadrasa alquraaniya naajixa, tilmaamaha ay leedahay dugsiga quraanka ah ee naajix ah oo laga hadli doono dhammaan qaybaha dugsiga, macalimka, manhajka, maamulka iyo sida loo maamulo madaarista quraanka. qaybta koobaad oo aan insha Allah taala aan hadda ku bilaabi doono الجزء الأول wuxuu aan oga sheekeyn doonaa hadduu Ilaahay idmo maamulka madaarista quraanka kariimka waxyaabaha asaasiyaadka ee muhiimka u ah iyo macalinka quraanka naajix ah maharaadka ama xirfadaha iyo tilmaamaha laga rabo inuu gaaro iyo sidoo kale tilmaamaha guud ee leedahay dugsiga quraanka ee naajix ah ayadoo insha Allah taala sidoo kale jiri doonaan su'aalo iyo niqaash iyo wada hadal iyo dood ku saabsan mawduucaadka laga hadlayo. dowladdu waxay ka dhici doontaa hotelka Taran 7 Street magaalada Nairobi insha Allah taala. taariikhda ay dhici doonto dowladdu waa يوم الخميس ee ugu soo aadan 5 Dhulxijja kuna beegan 15 bisha July 2021. dhamaan macallimiinta waxaan leenahay ku soo dhawaada dowladda. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا القرآن رباني